رمضان مبارك كوني ريكورد رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا ميل والبواد عالم كجوجتان وحان إذن ليهي رمضان مبارك. حتى وحان كسوغانهاي هوتل كان كدغانهاي مقالة نيروبي إن شاء الله. وحان روا إنان غارو سوق وين إن إسلي أيان بوغان دونا أو فولو قروح بدن أيان إذن كيسو دياران دونا إلا جوغ إلا داماتك مقالكا آدي يدو محسنتاي. رمضان مبارك لكل مسلم شهر واتهاي صاحبيال حد بنانكي أيام صباحني بنانك هوتلك أيام جوجنا طبعا إسلي واتنا صدقوا أركيسان مقالكا قدي أيام سيقل دونا إن شاء الله يعني وحن تيجي دونا هذا وحن جوجنا 11 ستريت إلا وحن تيجي دونا 12 كا رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان to all Muslims of the Quran السلام رير كينيا السلام انت إسلي ما شاء الله معك كذا وراح كذا بسكوتان كذا بسكوتان كذا تمران كذا ملبان كذا وحل باقي لي سني سوري كذا ما شاء الله ودما سنت تاتا انت اركان اوكي. رمضان مبارك كوني ريكورد رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها waxaan joognaa meel soomanka lagu iibiyo unauza ngapi? Kuna bei tofauti. Kuna 600, kuna 250, kuna 200. Sasa hiyo bei ndio nauza. Sasa itategemea ni gani unataka. Mimi nataka moja. Nataka hii. Hii naye nakuuzia 250. 250. Mimi ni ngapi sasa? Mimi ni 200 nakuuzia. Anachukua hii. Yiri marka mida 250 u siiya waa last price waa qiimaha ugu dambeeyay weeyaan oo soo sheegayo marka midkaas aan qaadanayna. Isli waa sidaan xaalkeeda saad ku arkaysaan muuqaalka. Naitwa Kevin. Nice to meet you Kevin. Watahay saaxiibayaal sunki waan soo gatay waa meesha maciishadeeda waxa waaye waa waagii hore sunkaas waxa kale waxa la siin jiray 50 shilin lacagtaada Kenya way isbedeshay ma fahanteen marka waxaan hadda socdaa 11 kan ka soo baxnay 12 ka ayaan ku sii soconaa 12 straight aan tagayna marka insha Allah. رمضان مبارك كوني ريكورد رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان رمضان مبارك كوني ريكورد رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان. waxaan joogaa halka ugu mashquulka badan ee isgooska ama runabout-ka weyn 12 Street ayaa hadda ku suganahay isli xilligan oo kale waa jam dadkoo dhan diyaar garow waxay ku jiraan waa xilliga afurka halkaas aan ognahay waxa loo soomaa 12 saacadood laakiin maanta waxaan afuri doonaa 12 saac iyo 50 daqiiqo ayaan afuri doonaa haduu Ilaahay insha Allah. رمضان مبارك كوني ريكورد رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان to all Muslims. baawurada dadka kama istaagaan waxyaabaha aan kala yaabaa kamid ah meesha ma fahan mootooyinka iyo baawurada
وهلستيدا بدن ميل ay dadka gooyaan malaha waayo waana aad ay u mashquul badan tahay halkan wasadan xalkeeda meel la mar malaha wada gali awoodaasa wadooyinka mujidan hadda feeri agasa meesha xalkeeda wasadan meel laga gooyo malahan saa aragtaan waa jam zaid رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims رمضان مبارك Holy Records رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims رمضان مبارك Holy Records رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran waxaan qaadanaynaa maanta mooto qaadanaynaa mooto nala socda رمضان مبارك Holy Records رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran defense in this holy month رمضان مبارك Holy Records رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran defense in this holy month أرحب بك يا شهر mooto saaranaa waa kuwaana oday isli waxaa la qaataa waa mooto bajaaj waliba laba qof lagu laba qof lagu raaca nin رمضان مبارك Holy Records رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن كور maanta geelan wallahi maanta geeliga la joognaa gabdho Soomaaliyeed xataa saaran oo jeeda aweys haye gaadin tiri waa niga aweys waa kana waa tahay saaxiibayaal waxaan ku suganahay mid ka mid ah xaafadaha Soomaalida degta Isli oo markaasi lagu magacaabo Stibad halkan oo jeeda geeliga dalxiisayaasha marka waa halkan waxa la yiraahdaa Section 3 oo marka waa xaafadaha ugu qadiimsan oo markaasi ay Soomaalida degan yihiin suuqa weyn oo yaani Section 3 ayaa hadda ku suganahay kulay waxaan idin sheegayaa muddada aan joogo dalka Kenya waxaan booqan doonaa gobolada dalka Kenya magaalooyinka taariikhiga sida magaalo xeebedka Mombasa insha Allah meelahaas ayaan tagi doonaa oo waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo aad u qurux badan balkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fadlan channelka subscribe dheh like saar asxaabtaadana la wadaag wixii fikrahana qaybta hoose noogu reeb inta aan muuqaal la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinkiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.